soo dhawaada halkani waa barteena youtube-ka mar walba naga daawataan. waxaan kusoo qaadan doonaa aabahaasi waa aaba Syrian ah, muddo 42 sano ayuu xirnaa. intii cimrigiisa jiro kala bar ka badan way baxday. ninkan wuxuu diiday hadda ka hor inuu Syria maadaama hadda isbedel ka dhacay oo Bashar al-Assad laga ceeriyay. Bashar al-Assad aabihiis ayaa xiray. Bashar al-Assad markuu yimidana meeshii ayuu kaga sii wadayo waxa waaye wuxuu diiday inuu magaalo ka mid ah magaalooyinka Syria oo dad shacab degan inuu duqeeyo diiday. Pilot ayuu ahaa ninkani, waa ujeedaan sawirkiisa asagoo yar iyo asagoo weyn. marka pilot maadaama oo ahaa maanta aabaha asagoo markaas 1981 la xiray ayuu hadda soo baxay 2024 sanadka bishii ugu dambeysay ee December. shalay ayuu xorriyadiisa helay, waana arrin markaasi farxad weyn gelinayso. inkastoo oo ninkan 42 sano bilaa xuquuq iyo bilaa maxkamad iyo bilaa wax lagu xukumay aysan jirin, maanta ayuu xabsiga kasoo baxay. ilaa iyo dhowr iyo 20,000 ayaa xabsida kasoo baxday Syria. Bashar al-Assad dhibaato fara badan ayuu halkaas u geystay. marka anagu maadaama halkan aan mar walba siyaasadda aan uga sheekeynin, laakiin waxaan ninkan usoo qaadanay dhibaatada uu soo maray oo ah kama arrimaha bulshada kaleeto waay. sababtoo dhibaato badan oo aabaha soo maray, dadkaada ha dilin, hana duqeynin, hana dhibaateynin. sidaas daraaddeed ayuu markaasi heerkan kusoo gaaray. maanta waa waayeel, sawirkiisa hore sawirkan waa ujeedaa 1981 anagu maana dhalna. ninkanna waa markaasaa la xiray. maxaa u malayn kartaa marka noloshiisa inta ugu badneed waa baxday. noloshiisa inta ugu badneed way baxday, waa iska waayeel hadda. inkastoo maanta farxad ay u tahay inuu banaanka joogo oo maanta neecaw arkayo oo maanta dad la noolaan karo oo maanta oo bulshada dhex geli karo, haddana waa qof weyn. waxaan dhihi lahaa marka dulmiga mar walba loo geysto ee dadka maxaa la yidhaha shacabka ama dadka siyaasiyiinta ama askarta ha ahaadaane, dulmiga loo geysto maalmaha ka mid oo isbedela dhacaya. hadda waa arkaysaan Syria odagii waa laga ceeriyey, meel cilo istaagay, ruushku iska dhiibay. haddana ninka odagaa banaanka jooga. 25,000 oo maxbuusa maanta banaanka joogto oo qaarkood cadaalad darro ku xirnaa. markaad xukunka lagu dhiibo ha ku tagrifalin. haddaa ku tagrifashana maalmaha ka mid a waa laga tuuri doonaa. waxaad dareemaysaa hadda ka hor waxaa xasuusanaa aabba 50 sano xirnaa, 50 sano Falastiiniya, 50 sano xirnaa, waa lasoo daayay. 75 sano isagoo jira, 25 sano lagu xiray, 75 sano lasoo daayay. marka haddii adig nasiib aad leedahay oon lagu xirin oo maanta reerkaada iyo noloshaada iyo familkaada aa wadato, alxamdulilah. ninkii la Nelson Mandela 27 sano xirnaa, markuu soo baxayna madaxweyne noqday. wixii ilaahay kuu qororto ma weynaysid, ma fahanta. ninkaana maanta inuu 42 sano xirnaado oo maanta asagoo waayeel banaanka yimaado, maanta farxaday u tahay wax ugu farxad badan ma. hal maalin oo xabsi ah ku jirto waxay kaaga qiimo badan tahay. maxaa la yiraahdaa maxaa la dhahaa waxay kaaga dhib badan tahay 2 sano 3 sano kaaga dhib badan tahay. hal maalin wax walba ay ka xun tahay oo xabsi ah ku jirto. ninka 42 sano xabsi ku jira ka war arrin sahlan ma ah. dulmigu ma fiicno. waxa way qofka waxa way markuu xil ama awood ama dhaqaale haysto uu ku takrifalaa. takrifalkaasna xisaaba ka dambayso. haddii aad marka dhaqaalaha ama kista ama awood ama maxaa la yiraahdaa militariga ama madaxtinimada ilaahay ku siiyay, hadda dadka shacabka ugu awood sheegato, yoom min al-ayaam adigana waxa way meel cilla ka bixaysaa. maanta reerkiisii wixiisii wala cararay, duurkaas oo la galay, ilmihiisii duurka u yaaceen, ma wadamadaas kala baxsadeen, lacagihii hantidii Syria ku fadhiyo ka cararay, magaalooyinkiisa waa la qabsanayaa. hay asgarta dareeska iska bedeleen. waa kaasa wadooyinka waxaad arkaysaa xabsi walba dadka oo laga qaado. qof kasto oo xabsi ku jiray banaanka la soo dhigay. waxaan dhihi lahaa dadka awoodda u isticmaalaya dadka ha iska dayaan, sababtoo awood sheegasho ma fiicno. waxaa fiican in la isku dhimriyo. waxaan dhihi lahaa dadka loo dhimriyo, naxariistu ha shaqeyso. dadka siyaasiyiinta awoodda sheeganayna ha iska dayaan. hadda ka hor waxaa xasuutaa nin Hargeysa duqeey la yiraahday oo magaalada Muqdisho reer Muqdisho ahaa la yiraahday Cabdi Dheere, inuu diiday inuu duqeeyo diyaaradda Djibouti ku dajiyay, Faransiiska iyo Jarmalka meelahaas iska dhiibay. kadibna amaano ku helay. hadda uu nool yahay ninkaasi inuu wuxuu diiday oo duqeeyo dad walaalihiis inuu duqeeyo diiday. ninkaana sidaas oo kaleeto waa. marka waana isku waqtigii ay isku aadayeen. 88 ayuu ninkan diiday. ninkan Soomaaliga 88 uu diiday inuu Hargeysa duqeeyo. ninkaana 81 diiday. mar walba aad inaad diido inaad shacabkaada leyso oo adigoo amar madaxweyne fulinayo, waxaa ku dhaanto inaad waxba fulin oo aad shaqaale iska noqoto ama aad iska dhimato inta dad masaakiin la ilahay. barnaamij shargarey meel fog gaarsiiya. halkan ay mar walba ku soo gudbi doonaa wixii ay noqotaba arrimo bulsho iyo wixii soo kordha caalamka. halkan ka daawanayda barnaamijkan barnaamij lamid inta kulmi doono fi amaan illah.